wasiirka macdanta iyo tamarta ee Somaliland Jaamac Maxamuud Cigaal oo maanta hortagay guddiga joogtada ah ee golaha guurtida Somaliland ayaa ka dhawaajiyay in xukuumaddu ay wado qorshe looga faa'iideysanayo dahabka iyo macdanta isla markaana lagu soo saarayo si loo abuuro koboc dhaqaale. wasiirka ayaa sidoo kale xildhibaanada uga warbixiyay hawlaha shaqo ee wasaaraddiisu ay qabato waxaana hadaladiisii ka mid ahaa inuu helo resource kale de waa lagama maarmaan taasaanu qaranka u xilsaaranay inaan raadino dhaqaale waddanka loo raadiyo halka uu sheegay khayraadkii waddanku halku sidii loola soo bixi lahaa inaan xoog saaro marka waxaan u aragnay macdantu inay tahay meesha ugu dhow taa ka jawaabi karaysa waxaanu ogaanay annagu wasaaradda ahaan markaa imaka policy-ga iyagu waxaan xoog ka saaraynaa shidaalku waqtigiisu qaadanaya sadka iyo muddada arkaysaan aynu sheegaynaa buu qaadanayaa waxaanu isleenahay waxa ugu dhowey waa macdantii oo la soo baxdaan oo sifo wanaagsan aynu ka hayno imaka runtii baaritaankan muddada aanu joognay aanu samaynay iyo ka horba la sameeyey waxay muujinaysaa inaynu waddan qariyanahay dal qaniya inaynu nahay laakiin dadkiisu faqiir yihiin nicmaynu dul joognaa min bari ilaa galbeed macdanteedna wada ku jirtaa cadad iyo xisaab ma leh taa ku bishaaraysta waxa dhiman oo aanu u baahannahay oonu ku tala jirnaa in dee waxaa loo baahan yahay exploration dhaba macdantii garanay nooc waliba ku jira dahab baa ku jira copper baa ku jira tin baa ku jira iron ore waxaa la yidhahdaa ku jira tiri qaar qaaliya baa laga yaabaa inaanu kolley naamunada ka hayno ay ku jiraan geesta kalena Jaamac Maxamuud Cigaal wasiirka macdanta iyo tamarta ee Somaliland ayaa xildhibaanada uga jawaabay su'aalo ay ka weydiiyeen khasaaraha xilliyada roobka ay sababaan shirkadaha korontadu waxaana uu ku jawaabay waanu isla qaadanay laakiin dib baa weli runtii taagan oo magaalo intaas oo shirkadood ku ordayaan magaalada gudaheeda ayaa sida loo maareeyaa ay adag Khalid Bulshawi Kalson TV Hargeysa